السلام عليكم magacaygu waa galada xagga diga daawanaysaana waa channelka muraso.com waxa markale kugu soo dhaweynaya muuqaaladan inta badan ka hadli jiray mobileska iPhone-iska iyo farsooyin fara badan oo runtii ku kaysan mobilkaaga iPhone-ka inaga hore soo sheegnay in inta badan dadku sida caadiga amba sida badanba ay ka baqaan in meelo fara badan mobilkooda iPhone-ka ay ka tijaabiyaan marka la barbar dhigo say u sameeyaan mobileska Android-ka haddaba waxa maanta kugu soo dhaweynaya 4 amba 5 farsamo oo ku isticmaal doonto mobilkaaga iPhone-ka haddii u nimaano farsamada koowaad ee aad ku isticmaal doonto mobilkaaga iPhone-ka horta waxaan naqaanaa sida caadiga haddii ka saaran u baahanahay sawir barta iga muuqda inaan ka qariyo oo aan ka soo muuqan footada mobilkaaga iPhone-ka ay waxaan sameynaa sida caadada meel ku dhufanaa kadib waxaan idhaahnaa hide ayaan idhaahnaa kadib wuxuu isku dayaa sawirkii inuu ka soo dhex muuqan albamiska xaggan hore iga muuqda ee ku jira footadeeda laakiinse haddii aan hoos tago waxaan bartan ku arkaysaa meel ay ku qoran tahay hidden kadib halka haddii aan ku dhufto waxaad arkaysaa in sawirka halkan iska yaalo yani inta macnaheedu waxa weeye qofkii si fudud ayuu ku arki karaa sawirkii aad rabtay inaad qarsato laakiinse farsamadan isticmaal waxaad tagi doontaa settingskaaga kadib footada ka sii tag kadib xaggan ay ku qoran tahay hidden album ee adiga ku furan ayaad xidhi doontaa haddii hadda imika aan ku noqdo footadaydii waxaad arkaysaa in halkan aanay ka muuqan albumkii aan ugu talagalay inaan ku qarsado sawirada aan rabo inaan ka soo dhex muuqan footadayda mobilka iPhone-ka farsamada labaad ee mobilkaaga iPhone-ka aad ku isticmaali karto ayaa wax tahay tusaale qof ayaa ku guul waxaan u baahanahay mobilkaaga iPhone-ka inaad ila dhiibto calculator-ka ayaan u baahnaa isticmaalo hayaba ku tiri wada dhiibtay laakiinse inaga Soomaaliha markay noqoto waxaynu caado u leenahay qofka haddii aad mobilkaaga u ila dhiibto usaan qara meel baan ka isticmaalayaa waxa uu markaa isku marayaa intaas oo meelood oo aan u dirsan adigu amba si aanu ka codsanba haddaba si taa aad u xadido oo qofka mobilkaaga iPhone-ka aad u dhibaysay kaliya uu isticmaali karo meesha uu xosaday ayaa waxaad isticmaali doontaa farsamada waxay tagi doontaa settingska kadib ka sii tag accessibility-ga kadib xaggan ay ku qoran tahay generalka amba qaybtan generalka markaad ku dhufato xaggan ay ku qoran tahay guard access-ka ee hadda adiga ku xidhan ay waxa sameyn doonto waad furan doontaa tusaale waxaan tagay ima calculator-ka ayaan tagay button-ka ayaan 3 jeer ka gaarsiiyay waxa arkaysaa inuu qaabkan igu soo baxay kadib waxaan start guard access kadib passcode-kayga ayaan gashanayaa kadib marka passcode-kayga gashado imika guard access-ku ku xidhan yahay qofkuna awood uma laha inuu ka gudbo meesha wacayintay ilaa aad ka furto guard access-ka ilaa adigu aad ka furto guard access kaasaan uga qaadaya kaliya waxaan ku xilin doonaa 3 jeer ayaan tambada ka taaban doonaa kadib passcode-ka ayaan gashan doonaa kadibna waxaan odhan doonaa end ayaan odhan doonaa waxaad arkaysaa in guard access-kii uu iska qaaday mobilku farsamada saddexaad ee mobilkaaga iPhone-ka aad ku isticmaali karto ayaa wax tahay waxa jira sida caadiga apps fara badan oo mobilkaaga iPhone-ka ku jira kuwaas oo runtii ku taraagelinaya amba si awood laba loo ogaadaan hadba goobta aad ku sugan tahay si hadaba aad u ogaato apps-ka adiga ku taraagelinaya ayaa waxaad sameyn doontaa waxaad tagi doontaa settingskaaga kadib qaybtan privacy-ga ee kaalay kadib xaggan ku qoran tahay tracking ayaad ku dhufan doontaa kadib waxaad sameyn doontaa wax bartan kaga soo bixi doona apps-ka yani kuwa awood u leh ku taraagaraya ee u furan tahay iyo kuwa ka xidhayihiin marka waxaad sameyn doontaa hadhow tala apps-ka aad u baahan ku taraagarayo ayaa waxaad sameyn doontaa waad iska xidhi doontaa farsamada afraad ee ku isticmaali doonto mobilkaaga iPhone-ka waxaan ka dhigi doonaa waa dhinaca markay noqoto qaabkaad u baas gareyn karto iyo soo kale qaabkaad notepad-kaaga ugu qori kartaba amba se textiga aad u qori kartaba aad u sameyn karto nidaam fara badan oo runtii ku yaab gelin kara tusaale bal ila eeg hadda qaabka aan sameeyo haddii tusaale ahaan tago notepad-ka oo markaad u baahan tahay inaad wax ku qorto haddii mobilkaaga aad luxdo waxa mobilkaaga iPhone-ka uu leeyahay inuu dib uga noqdo qoraalkii aad sameysay haddii markaad ku soo celisana waxa uu leeyahay in qoraalkii aad soo celiso amba se in dib aad u sii masaxdo qoraalkii markii aad soo qoratay waxa soo kale awood u leedahay tusaale qoraal baad qortay qoraalka waa select garaysay haddii labada farood aad saa ku tiraado waxa uu kugu qaadi doonaa copy haddii 3 farood saa aad shaashada ku tiraadana waxa uu ku sameyn doonaa inuu ku baas gareeyo qoraalkii aad soo qaadatay ee copy-ga aad ku siiyay